sidii aad warkeenaba ku maqasheen dalka Ethiopia waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay isku day afgambi oo abaabulan oo lagu sameeyay hoggaanka sare ee xukuumadda Amxaarada ee dalkaasi. intii ay socdeen weerarada isku daygan afgambi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambecho Mekanon oo ahaa madaxweynihii gobolka Amxaarada iyo Ezes Waseya oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amxaarada. waxaana sidoo kale la dhaawacay xeer ilaaliyihii guud ee gobolka Amxaarada Migbaru Kabede. magaalada Addis Ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi General Sayare Mekanon iyo nin kale oo generaal ah oo howlgab ah laguna magacaabo Gazaye Aberra. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashuud. war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in isku dayga afgambi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Amxaarada uu soo abaabulay sareeyagaas Asamino Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka Amxaarada isaga oo ay la shaqaynayaan shakhsiyaad kale. qaar badan oo kamid ah shakhsiyaadka ku lugta lahaa isku dayga afgambi ayaa la soo xirxiray waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shakhsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in General Asamino Sige cafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. xaaladda ismaamulka Amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo uu la shaqaynayo maamul goboleedka Amxaarada kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatan maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Amxaarada Lake Anyelow. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyey muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyayaasha nabadda ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shakhsiyaadka mas-uulka ka ahaa isku dayga afgambi. isku dayga afgambi ee gobolka Amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia General Sayare Mekanon oo uu weheliyo generaalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gazaye Aberra. dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay General Sayare. weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha General Sayare kaas oo sidoo kale la soo xiray. guddi qaran ayaa la sameeyay oo ka shaqeeya aas military oo loo sameeyo General Sayare Mekanon iyo generaalka kale ee howlgabka ahaa Gazaye Aberra. guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraad ah haddii loo baahdo. aad ay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa VOA. haddaba sidee ayuu ku yimid isku dayga afgambi dalka Ethiopia ka dhacay sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dowladda Abiy Ahmed? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Haroon Macruuf waxa uu hordhigay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaraadka caalamiga ah waa xasaradaha caalamka ICG ee bariga Afrika. dowladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkanayto ka dhacay shalay magaalada Bahir Dar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgambiyo dowladda Amhara ayay sheegtay sida war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia lagu qoray. laakiin waxaan u malaynayaa in arrintanayto ay kasii weyn tahay gobolka Amhara keli. waxaa laga yaabaa in ay haddii ay noqoto in shirqool yani afgambi la rabay in lagu sameeyo dowladda Amhara, waxaan u malaynayaa in arrintanayto ay kasii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dowladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgambiyo. mar kale oo horena waa tii uu asaga naftiisa u qiray in la rabay in dowladdiisa la afgambiyo. waa gartay maxaa waroo laga hayaa tallaabada dowladdu qaaday xaaladda magaalada Bahir Dar iyo Addis Ababa xaaladeedaba? labada magaalo xaaladda Bahir Dar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma, laakiin dadka
aad baa loo cabsi qabaa. dadkan way ku yar yihiin magaalada, badi dadka guryahooda ayay joogaan, marka xiisadda aad bay u kacsan tahay. yaa ka dambeeyaa laleeyahay isku daygan afgembiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa? dawladda waxay sheegaysaa in falkanita afgembiga la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo xabsigana ku jiray, markii dambe lasoo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey, oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka Amhara oo generaal ah. ninkaasaa ka dambeeyey ayay leeyihiin afgembigan rabay in laga sameeyo Amhara region. waa gartay. xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Ethiopia, gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qowmiyadaha badankiisu dhul ku salaysnaa, siyaasadda laftigeedu kama maqnayn, laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray. maxaa dhacay gobolka Amharada? wallahi waa runta. aniga naftayda haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray, maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aada u tababaran, waxayna maaragtay aad bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Ethiopia. marka dad badan baa filayay haddii dhibaato ay ka dhici doonto Ethiopia waxay ka imaaneysaa Tigray. hase yeeshee Amharada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkanayta socdo, laakiin ani sidaan u malaynayo waxaa laga yaabaa arrintanayta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda. uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyado kasoo horjeeda ormada. waa gartay. marka seed u aragtaa muddada uu soo maamulaya Ethiopia Abiy Ahmed hadday noqoto? dabcan dhinaca caalamka waxa loo arkay nin isbedelo badan oo wanaagsan wada, laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee? waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey, isbedelo yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba. hase yeeshee dhibka ugu weyn Ethiopia maanta haysta waxaa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan. qowmiyadaha way iska soo horjeedaan, dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku haya dawladda. abiyna arrintanayto uma soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban. marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in uu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii wadanka haysatay, uuna ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda ah iyo projectkanayto uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Africa inuu isu keeno. marka waxay leeyihiin dhibkanayto ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa, haddii uu maaragtay yani samayn lahaa xiriir ula samayn lahaa qowmiyadahanayto sidii u ogaado dhibaatooyinka haysta. sanadka dambe Ethiopia waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. seed u aragtaa mustaqbalka Ethiopia? Abiy Ahmed ma isku hayn karaa Ethiopia? xaaladda Ethiopia aad meel xun bay maraysaa. umana ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis, inuu u baahnaan doono. maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkanayta uu ogaado, uu maaragtay dhibaatooyinkanayta ka taagan gobolada uu si wanaagsan wax ooga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto, uu maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istaraatiijiyad wanaagsanna uu wadanka ku maamulo. dadka badi waxay ku eedeynayaan Abiy in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixii dawladda dhan asaga naftiisa wada, oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. marka taas ayaan u malaynayaa dhibka ugu weyn. fursad uu leeyahay laakiin wadanka meel xun buu marayaa.
waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan Abiy in uu arrimahanayta wax ka qabto. haddii isaga keligiis lagu sii daayo waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato. kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaradaha caalamka ee ICG ee bariga Afrika. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haarun Macruuf.